بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والله ليال ودرسي أما دروستي كصاب سنة رمضان وإذا كي إيماني سي مساجد كالسنة إسلاميك سنتر سان waxaan hore uga soo hadalnay soonka iyo axkaantiisa oo xalaqaadkii hore ku soo qaadanay sidoo kale waxaan ka soo hadalnay waxyaabaha soonka buriyo waxaan ka soo hadalnay ducada iyo soonka xiriirka ka dhaxeeyo kelimada ama xalqada maanta waxay ku saabsan tahay sunanta ama sunanka uu leeyahay soonka aadaab buu leeyahay soonka sunan buu leeyahay soonka la rabo dadka muslimiinta ah inay ilaaliyaan oo dhowraan si soonkooda u noqdo soon kaamil ah laba qodob ayaan rabaa inaan ka soo qaato oo darsiganaga maanta aan ku soo koobo biidin Ilaahi tabaaraka wa taala qofka muslimka ah ayuha al-ikhwa wal akhawat cibaadaadka uu Ilaahi ku caabuday subhanahu wa taala waxa muhiim ah inuu garanayo aqoonna u leeyahay waajibaadkeeda sunanteeda soomaartid arkaanta shuruuda markaas uu qofka arinka fahmo oo uu garto oo ama cilmigeedu uu barto ama uu weydiiyo culimada weydiiyo ayuu Ilaahay ku caabudi karaa maxaa yeelay qofka haduu jahli Ilaahay ku caabudo oo uusan kala garanaynin waxa Ilaahay uu ku caabudayo ma sax ma mise waa qalad waxay u badan tahay cibaadadiisa qofkaas inay noqoto waxa weeyaan hal baad lagu lusay ama dhaan daba gaalo inay noqoto si marka walaalka muslimka walaasha muslimada ah cibaadada ay u toosto waa inaad aqoon u yeelataa cibaadada cilmi u yeelataa waa ida dambe waxa iska batay in dadku aysan ihtimaam siinaynin cilmiga sharciga ah bal marka saan oo kale ramadaanka u yimaado dadka muslimiinta waxa waajib ku ah cilmiga ramadaanka inay bartaan وكذلك مركز حجنا يسوع حج آديس إن برت أحكام حج واجبات كحجك صونك مركز أيها الإخوة والأخوات سننتي سو حاكم ذا وحلي هذا تعجيل الفطر وتأخير السحور سحورتا أو لدبدجو إيو أفركا أو لددجيو وهدي النبي عليه الصلاة والسلام إيو سنة ومضن وجح النبي عليه الصلاة والسلام إن لددجي أفركا marka la hubsado qorraxda inay dhacdo suxuurtana dib loo dhigo ilaa uu soo dhawaado aadaanka dambe uu soo dhawaado halka marka waxaan ka fahmaynaa suxuurta oo dib loo dhigo iyo afurkoo la dadajiyo inay tahay hadigii nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam nabiga waxa ka sugnaaday sida imaam Bukhari iyo Muslim ba ay soo saareen asagoo tilmaamayo muhiimadda suxuurta ay u leedahay فحنا لها أفرك وقول لي هاي إلا ددجي أمضى المسلم كاه أمضى النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي نبي وحولي عليه الصلاة والسلام حديث سهل ابن سعد الساعدي نبي وكورنا أيه أي وحولي أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر في بعض الروايات ما عجل الفطر كما الزوليان ضدكو إني خير كسويهين انت اي ددجنيان افطارك خيريه marka umada nabi maxamed alayhi salatu wasalaam waxa weeyaan dadajinta waxa weeyaan in la dadajiyo suxuu afurka la dadajiyo maxaa laga wadaa dadajintaasi iyo khayrka ay ku sugan yihiin maxaa laga wadaa dadajinta iyo khayrka ay ku sugan yihiin waxa laga wadaa sida imaam an-Nawawi rahmatullahi alayhi uu leeyahay markuu fasiraya xadiiska la yazaalu an-naasu dadka kama zuulayaan bi khayrin khayr ma ajlu al-fitra inta ay fitrada ay afurka ay dadajinayaan imaam an-Nawawi wuxuu leeyahay rahmatullahi alayhi wa hawiye ay la yazalu amru al-ummah Muhammad muntadiman wa hum bi khayrin ma damu muhafidina ala hadhihi sunnah ummadda nabi Muhammad khayr kama zuulayso inay isku hagaagaan oo ay toosnaadaan kama zuulayaan inta sunnadan ah in la dadajiyo waxa weeyaan ma aragtay afurka ay ku taagan yihiin sunna marka weeye in la dadajiyo afurka in la dadajiyo nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam sunnadiisa oo lagu taagnaadana waxa laga helayaa khayr baa laga helayaa
halka marka waxaan ka garanaynaa ayuha ikhwa wal akhawat dad baa waxay iska caadaysteen inay dib u dhigaan oo waliba qaarkood waan arki doonaaye ilaa ay tukadaan maba afurayaanba soo aragtid laakiin sida saxa waxa weeyaan in la afuro oo la tukado afurka iyo maghribkaba in la dedejiyo way waxay ku leeyihiin xaada hamadoobato waxay ku leeyihiin buuraha aan fulno oo guriyaha aan fulno qorraxda aan fiirina dhacday qorraxda haday dhacdo oo la hubsado inay dhacday khalaas waa in la afuraa oo afurkii la bilaabaa maxaa lagu afuraa iyo see loo afuraa marka la ka hadli doonaa laakiin in la dedejiyo qofka uu dedejiyo iftaarka uu dedejiyo ama afurka uu dedejiyo waa hadigii iyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam kamana zuulayaan ummadda nabi maxamed inta ay sunnada ku taagan yihiin Soomaaliyeed haday sunnada dayacaan oo sunnadaas ay dib u dhigaan oo afurka ay dib u dhigaan waxay dadkaasi calaamo u tahay fasaadka iyo dhibaatada ummadda haysatay waxay u noqonaysaa daliil u noqonaysaa waxa marka qofka muslimka ah inuu iska ilaaliyo waxa u keenayo maaratay dibka u keenayo nabiga calayhi salaatu wasalaam marka ay qorraxda dhacdo oo la hubsado qorraxda inay dhacday ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam timir uu ku afuri jiray salawaatullaahi wasalaamu calayhi hadduu qofka timir waayo biyo qofka inuu maaratay waxa weeyaan ku afuro hadduu biyo waayo wax marka ilaahay u qadaro inuu qofkii uu ku afuro nabigana calayhi salaatu wasalaam sida Umar ibn Khattab radiyallahu anhu nabiga ka warinayo wuxuu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam idha aqbala al-laylu min hahuna سمارتد وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم سيد إمام البخاري وصو صاريو هدي مارتي وحويان هبينكي وحقك سو قابله او مارتي سو قابله هبينكي او مالنتي اي دبر جيديسو او مالنتي اي تagto oo arada ay mارتي madoobato oo وغربت الشمس qorraxdana ay dhacdo فقد أفطر الصائم بو النبي عليه الصلاة والسلام qofka marka soomana waa inuu afro way oo afraya waxa marka loo shardinayaa afurka qorraxda inay dhacdo markii saa u dhacdana waa la dadajinayaa wax dambe la sugayo ma jirto xaad la sugayo iyo maaragtay u kaadiye iyo ma jirto waxa marka qofka muslimka ah inuu masalada ogaado oo arinta maaragtay qalbiga uu ku hayo nabiga calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa xaas kamida sida imaamu muslim uu soo saarayo anabi atiya ayaa waxa uu leeyahay ninka abi atiya wuxuu leeyahay dakhaltu أنا ومسروق ولما تابعه ويا أيا وحولي وحن أقلنا عائشة رضي الله عنها أمنا عائشة أتي رضي الله عنها مركزها وحي ويدين مارتي رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما أو صحابة النبي كمدا أي ويدين سمارت كلاهما لا يألو عن الخير سمارت أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر مثل بعضنا يؤخر المغرب والإفطار لبنن سمارتد أيا وحي ويديان وصحابة كمد أي ويديان عائشة رضي الله عنه لبضانن وحيدها لبضانن متكود لا يألو عن الخير نين خير كمعناها مارت وحاوي كضاها ماها نين خير كأودك دقوي سمارتد أحدهما متكود يعجل المغرب مغرب كود الدجنية سمارتد والإفطار أفركا والآخر كان كلنا يؤخر المغرب والإفطار وحدي بدقيا مغرب كي أفركو دي بدقيا عائشة بركوي ويدي سوى حيتري من يعني من الذي يعجل المغرب والإفطار واكمت كمغرب كإيو أفركو ددجيتري سمارتد مركاسة وحي كوير هذين وعبد الله بن مسعود عبد الله بن يعني عبد الله بن مسعود بيولوجي ده عائشة وحيت رضي الله عنها كذا هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله ساسوها صلوات الله وسلامه عليه هل كان محاكا قرني سنة النبي عليه الصلاة والسلام إني أهيد إلا ددجيو وحويان أفريقيا لددجيو حكمة اللي جه لي أفريقيا إلا ددجيو ويبدنتها لكن وحيابها أو مهم سن وحاكم إذا إني تهي معناه وحلا أفريقيا إلا ددجيو وحاكم إذا إني تهي وحويان خلاف اليهود يهود أو الله خلافه محايا لي يهود سيدي أسوميين هكي قدسناته ومدى النبي محمد سيدي أسوميين لكن
ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa ayaga manhajkooda uu yahay sideedaba inay khilaafaan yuhuudda inay khilaafaan waa amarkii nabiga calayhi salaatu wasalaam in yuhuudda la khilaafo shareecadanada ayna amartay yuhuudda in la khilaafo maca dalika ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam soonka aad maqasheen oo maalinta cashuura la soomo ayaa nabiga markii madiina uu yimid oo ay arkay nimankan oo maaragtay waxa weeyaan soomahayo oo maaragtay waxa weeyaan u dabaaldegaya maalintaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi annaga idinkaga awleysan markay yidhaahdeen maaragtay waxa weeyaan waa maalintii muuse la badbaadiyey calayhi salaam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray ummadiisii inay soomaan bal wuxuu nabiga ballan qaaday hadduu noolaado sanadka dambe inuu soomi doono nabiga calayhi salaatu wasalaam muxuu u soomayaa khilaaf la khilaafay yuhuudda maalintaas ay maadaama isku soo hagaagtay cibaadadii ma aragtay waxa weey ummadan iyo cibaadadaasi ayuu marka nabiga yiri haddaan noolaado maalinta sagaalaadna waan soomayaa marka in la dedejiyo soo macnaha afurka waa khilaaf la khilaafay yuhuudda dib bay u dhigi jireen afurka in ma aragtay ayagu markay afurayaan laajil dalika abi daawud iyo sunankaba waxay soo saareen sheekh al-albani xadiiska xasan uu ka dhigayo fi sahih abi daawud ayaa nabiga wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam لأن اليهود نمنك يهود اليهود والنصارى يؤخرون ويدب ديغان معناها وحويان وحي آدو دب ديغان أفريقيا آدو دب ديغان مركا إلا ددجيو أو حال ربا قفك مسلم كأ مركا قرح ذا أيد عذاب أفريقيا ودجيو مع ذلك أي إمام النووي رحمة الله عليه باوحا أوليه فيه حث على تعجيله بعد تحقيق أو بعد تحقق غروب الشمس marka la ogaado qorraxda inay dhacdo in hore laga dadejiyo macnaha waxa la diidayaa qofka inuu yiraahdo afur baan dadejinayaa oo qorraxdii oo aan dhicin uu yiraahdo waa maaragtay waxa weeyaan waan afurayaa marka qofka waxa la rabaa muslimka ah qorraxda markuu hubsado inay dhacday inuu afuro qofka oo afurka uu dajiyo waana meesha uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamaya khayriyada ummadan inay maaragtay leedahay waana midda uu leeyahay imaam an-nawawi la yazaalu أمر الأمة محمد صلى الله عليه وسلم منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة سنة مركز النبي عليه الصلاة والسلام ومدى ويو إلا ددجيو وحاويان أفرك إلا ددجيو سحورتا إلا دبدغو وهدي النبي عليه الصلاة والسلام سوكرا وحنكسو كوبيا هل حديث أو النبي عليه الصلاة والسلام كسوناتي أو النبي عليه الصلاة والسلام وأمر يا أمديسة إني سحورتنا أي دب ديغان محايا لي ودقنك يهدي نبيك عليه الصلاة والسلام نبيك أنا الرباء إن لو قد يدو عبادات كالله سمين أيو خذوا عني مناسككم بيقول النبي عليه الصلاة والسلام وحد إيقاظة عليك عبادات كان إيقاظة بيقول النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك يا أنس بن مالك رضي الله عنه وحنبي كورنا يا حديث إمام البخاري مسلم بأي صوصار يعني متفق عليها إنه يري النبي عليه الصلاة والسلام تصحروا وردده سحورته محايا إلى فإن في السحور سحورته بركة وبركة كسوغن سوارت بركة كسوغن سحورته مركا إن قفك أو سحورته أو مارتي وحويان بركة أو هلو بركة مركا محايته هاي إلهي أود بكوسنا لأن قف بركة يسمى هاي أو سحورته وحويان أود أو يلنا سنة عبادي أدقدتيد أود أو يلنا سنة متقنا جاجدي مارتي وحويان إسكدي فعده إسكالي سيد سحورته مركا إن لا سحورته ومارتي وحويان سحورتنا وليبا ديب لو ديغو سيدا نو إيمان دونتو أيا الله رباه أو أنا مارتي سيدا أفرقو كان أيضا ألا ددجرين أنس بن مالك رضي الله عنه سيدو كلا زيد بن ثابت رضي الله عنهما لما أنتو دوحي النبي كورني أنه النبي يقول لي هاي أين إليه رقاسي تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لا سحورنا ثم قام إلى الصلاة مركز النبي صلاة دو استاجي سو مارتد صلاة النبي دو استاجي مركب والله قيم مرنوبة مركزها وحلا ويدي رجع يجاها كم كان بين الآذان والسحور سحورتا هي آذان كم حاول حي مركزها وحي لهذين وحاول حي قدر 50 آية كنتن آيات إلا آخرين كنتن آيات إلا آخرين قرآنك وليبا كنتن آيات سيدا إمام النووي ركلا بأي تلمام يان وحاويان آيات أن آد أولا ديرين وي سو مارتد قفك مركا مسلمك وحالا ربا إنو سنان تاس كود دالو سحورتنا ودب أوليغو
oo uu qofka muslimka oo walaalka ah waxa weeyaan afurkana uu dedejiyo waxa laga yaabaa dadka qaarkii inay yiraahdaan gaajana ma hayso ee maaragtay waxa weeyaan maxaa u soo kacaynaa ama fiidka horeba qofka uu iska soxorto waxa ku wanaagsan hadigii nabigana ah inaad soo kacdid oo hadaad xataa waxba cunu karin timir hadaad helaysa aad cunto laba timirood ama saddex timirood aad cunto ama koobiye ama maaragtay waxa weeyaan aad ka bato taasa waxay tahay maaragtay waxa weeyaan hadigii nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam ujeedada iyo waxa loo soo xuranayna gaajo iyo maaragtay ma aha kaliya waa sax inaad awood heshid oo gaajada aad maaragtay waxa iska difaacdid laakiin waxa kale oo maaragtay meesha ku jira waxay tahay hadigii nabiga iyo sunnadii nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam in maaragtay waxa weeyaan qofka uu tadbiiqiyo oo uu qofka maaragtay waxa weeyaan raaco ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni soo maartid haddaad ilaahay jeceshihiin isoo raacu leeyahay nabi maxamed kaleeyhi salaatu wasalaam ilaahay baa ka xakaayanayo oo noo soo gudbinaya maaragtay waxa weeyaan arrinka marka walaalayaal waa in saa loogu baraarugo insha Allah ta'ala darsiganaga marka maanta wuxuu ku egyahay oo uu ku koobnaa labadaas sunno in dadku ay tadbiiqiyaan oo qoraxda aan maaragtay markii dhacdaba aan dib loo dhigin oo xaada la fiirinin oo la dhihin maaragtay xaada noo fiiriyo ee hore laga afro soo maaragtay iyo in la suxurtana dib loo dhigo insha Allah ta'ala duruusta kale ayaan maaragtay insha Allah ta'ala kaga hadli doonaa soonka iyo maaragtay waxa weeyaan waxyaabaha ku tacaluqo aadaabtiisa ku saabsan ilaahay waxaan weydiisanaynaa subhanahu wa ta'ala inuu soonka naga aqbalo naguna daro dadka naarta laga xoreynayo bishaan barakaysan habeenka barakaysanna ilaahay hana waafajiyo wajazaakumullahu khayr wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ila liqa